dastuur waa heshiis bulsho kaas oo ilaaliya xuquuqda muwaadinka qeexana waajibaadkiisa sidoo kale dastuurku waa mabaadi'da aasaasiga iyo xeerarka lagu maamulo ummad meel wada degan jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa intii ay jirtay ay yeelatay 3 dastuur 2 axadi qarameed iyo 1 dastuur oo ku meel gaar ah sanadkii 1960 dadka Soomaaliyeed ayaa yeeshay dastuurkii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxaana uu dastuurkaasi jiray inta u dhaxaysay 1960 ilaa 1969 xukunkii militariga ee dalka soo maray ayaa 1997 sameeyay dastuur cusub kaas oo dalka lagu xukumayay intii uu jiray xukunkii kacaanka dhanka kale xukunkii militariga ayaa 1990 sameeyay dastuur cusub oo aanan waqti u helin in afti loo qaado maadaama uu dalka galay dagaal sokeeye dawladdii Soomaaliyeedna ay burburtay sanadkii 2000 kadib burburkii dawladda waxaa dalka Jabuuti lagu sameeyay axadi qarameedkii carta ee buddig u noqday dib u yagleelidii dawladda Soomaaliya kolkii la soo gaaray sanadkii 2004 waxaa Imbagaati lagu sameeyay axadi qarameed kale oo lagu soo dhisay dawladdii labaad kadib burburkii dalka ugu dambeyn kowdii bishii Agost sanadkii 2012 erga matalaysay shacabka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku ansixisay dastuurka ku meel gaarka ah ee haatan ay dawladda ku shaqayso kaas oo ay dib u eegis ku socoto haddaba inagoo og in dhamaystirka dastuurka uu yahay waajibaadka ugu muhiimsan ee horyaala dawladda federaalka wasaaradda arrimaha dastuurka waxa ay muddo kooban gudaheed horumar baaxad leh ka samaysay arrimaha dib u eegista dastuurka haddaba wasaaradda arrimaha dastuurka iyo hay'adaha ay shaqo wadaag yihiin maxay ka qabteen hawlaha dhamaystirka dastuurka dastuurka meel fiican maraysa sida la ogyahay shaqada waxaan bilownay April 2017 markaan bilownayna waxaan ku bilownay sidaan u dhisi lahayn isla shaqayn ama han noqoto gudiyada dastuurka madaxa bannaan ee kan baarlamaanka iyo han noqoto wasaaradaha dastuurka ee maamulka goboleedyada taas waxay keentay wada shaqayn fiican inaan wada yeelano waxaan kaloo sameynay inaan gaarsiinaa wacyigelin bulshada qaybaheeda kala duwan ama ha noqdaan dumarka ha noqdaan ama dhalinyarada ha noqdaan culamo udiin ha noqdaan inaan gaarsiino meesha aan u wadno dastuurka ay nala fahmaan kabacdina waxaan tagnay gobolladoo dhan hal mar keliya ma aha 2 ma aha 3 ma aha inaan iyagana gaarsiino meeshaan u soconno waxaan kaloo sameynay madal
aan ku wada midaysan lahayn wasaaradda federaalka dastuurka iyo wasaaradaha maamul goboleedyada taas waxay noo sahashay inaan isfaham fiican la helno. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u qoondeysay lacag markii ugu horeysay si loogu dhameystiro dib u eegista dastuurka Soomaaliya, taas oo muujinaysa in xukuumadda ay ka go'an tahay dhameystirka dastuurka. xukuumaddan uu madaxweyne Farmaajo uu madaxda ka yahay una hogaamiyana ka yahay رئيس وزير مدن حسن خير رئيس وزراء وحكومة الورثة والقالة كبحيسو معناها المحيطها إنه كلبتها الدستور كما لما يشتروا هو إنه كلبتها الدستور كان هذا الدستور صومالي لله سدح إنه الدستور كان يشاء الله حانشو وما تقالنا هلونه ويشاء كلسوني لما الليجيتيمسي ويشاء هاي الواحد البرنامج اللي قاعد معمول ولا قال الغاسي waxaad ku faani kartaa ma aha taana ummadda Soomaaliya waa soo dhaweeyay. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ballan qaaday in xukuumaddiisu ay geed dheer iyo mid gaabanba u kori doonto sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dastuur dhameystiran oo bulshadu ku heshiisay. wasaaradda arrimaha dastuurka oo kaashanaysa wasaaradaha arrimaha gudaha, maaliyadda, batroolka iyo cadaaladda ayaa fududeysay kulamo badan oo looga wada xaajoonayay arrimaha u baahan in laga gaaro heshiis siyaasadeed sida hanaanka maaliyadeed ee federaalka, nidaamka cadaaladda ee federaalka iyo awood qaybsiga, kuwaasoo lagu lafaguray noocyada ku habboon Soomaaliya. waxaana kulamadaas ka soo qayb galay hay'adaha ay qusayso arrimahaas sida wasiirada arrimaha dastuurka, arrimaha gudaha, batroolka iyo cadaaladda, hanti dhowraha qaranka, wasaaradaha maaliyadda ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada, guddiga farsamo ee wada xaajoodka arrimaha federaalka, aqoon-yahano, rugta ganacsiga iyo xeelleerayaal arrimaha maaliyadda. waxaana hadda miiska saaran arrimahaas oo inta badan laga gaaray aragti midaysan loona bandhigi doono golaha amniga qaranka si ay u ansixiyaan si loogu bedelo luuqad dastuuriya. sidoo kale waxaa dib u eegis farsamo lagu sameeyay 10 cutub ee ugu horeysa dastuurka ku meel gaarka, 4 cutub ee dhimanna waxaa ka shaqeynaya gudiyada u xilsaaran. wasaaradda arrimaha dastuurka oo ka mid ah wasaaradaha u xilsaaran fududeynta arrimaha u baahan wada xaajoodka siyaasadeed ayaa fududeysay shirkii golaha amniga ee lagu qabtay Baydhabo sanadkii 2018 kaas oo lagu gaaray heshiiska wadaagga kheyraadka iyo doorasho qof iyo cod ah. Juun 2 ilaa 5 waxaan shirku qabanay Baydhabo ay yimaadeen maamul goboleedyada, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddiga wada xaajoodka, wasaaradaha ay khusayso arrimahan oo ayagana meesha dhex fadhiyeen, arrimaha gudaha, wasaaradda dastuurka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda batroolka. halkaasna ay ka soo baxday 2 heshiis oo runtii dhaxalgal ah. kan hore waa kan mataqaanaa kheyraad wadaagga, kan kalena waa nidaam federaal oo doorashooyin ah oo lagu soo wada heshiiyey. waxaa loo bedelayaa luqad dastuuri ah. waa hadda la hor yaallo oo laga soo sameeyey faham fiican laga soo sameeyey inkastoo aan weli laga wada xaajoonin nidaam federaal oo garsoor ah, awood qaybsiga, nidaam federaal oo maaliyadda ah, systemkii dawladda madaxweyne uu ku dhisnaan doona iyo madaxweyne ku-xigeen prime minister uu ku dhisnaan doonaa iyo xisbiyo kaasna model laga soo sameeyey. kuwaas dhan waxay sugayaan hadda in wada xaajood laga galaa madashii mataqaanaa amniga qaranka markii la wada fadhiisto oo hadda hakad galay. waxaan rajaynaynaa bishan February iyo March in howlahaas dhan laga gaari doono. waxaa noo haray hadda wasaaradda arrimaha gudaha ay gacanta ku haysa waxa waaye munaaqashadii ama wada hadalkii laga geli lahaa maqaamka caasimadda ay ka geli lahayd nidaamka federaalka. waxyaalahaas dhan haddaan soo dhammaystirno
waxaan aaminsanahay in mataqaanaa oo federaaleynta waddanka inay dhigi doonto. dhanka kale waxaa jira arrimo badan oo u baahan in wada xaajood siyaasadeed laga galo sida hanaanka maaliyadda ee federaalka, nidaamka garsoorka, awoodaha laamaha dawladda ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed, iyo maqaamka caasimadda. haddaba arrimahaas xagee marayaan, maxaase laga qabtay? ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabay sanadkii la soo dhaafay guddiga la yidhaahdo guddiga wada xaajoodka arrimaha federaaleynta ah oo ka kooban 11 xubnood. guddigaas in la sameeyana aad u fiicnaan maxaa yeelay waxay ahaayeen guddigii nagala shaqeynaya sidii looga xaajoon lahaa waxyaalaha la isku haysto oo siyaasadda ah ay ka mid yihiin khayraad wadaagga, nidaam federaal oo doorasho ah, nidaam garsoor oo federaal ah, nidaam maaliyad oo federaal ah, nidaam habka dawladnimo ah, systemkii dawladda ay loo sameyn lahaa, caasimadda ha noqoto, iyadina shaqo fiican ka socota laga soo qabtay. sidoo kale wasaaradda arrimaha dastuurka ee uu hogaaminayo wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo gacan ka helaysa madaxda sare ee dawladda federaalka iyadoo maanka ku haysa baahida shacabka ay u qabaan dhamaystirka dastuurka ee sanado badan soo jiitamayay, waxay si dardar leh u bilowday howlaha dib u eegista dastuurka laga soo bilaabo bishii Abriil sanadkii 2017. waxa ay wasaaraddu ku guuleysatay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la tashiyada dadweynaha, abuuridda jawi wada shaqeyneed ee guddiyada shaqadu kala dhaxayso iyo dawlad goboleedyada, iyo sidoo kale dardargelinta howlaha waxbarashada madaniga iyo wacyigelinta dadweynaha ee arrimaha dastuurka. diyaargarow dheer iyo abaabul badan kadib, wasaaradda oo kaashanaysa guddiyada shaqo wadaagga ay yihiin iyo wasaaradaha dastuurka ee dawlad goboleedyada waxa ay 13 bishii May sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2018 ku guuleysatay in Muqdisho ay ku qabato shirweynaha qaran ee dastuurka, kaas oo isugu yimaadeen in ka badan 500 oo qof oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa oo ka kala yimid gobolada dalka iyo qurbaha. sanadii la soo dhaafay waxaa jiray dhalinyaro badan oo dhaxaya dastuurka mudugida ku jira laga saaro ama dhammaystiro waxyaalaha technicalka ama waxyaalaha soo imaanaya. dhalinyaro kaloo jiro waxay loogu imaanayaan maamul goboleedyada oo dhahayeen waa in la helaa siyaasad degan oo ah sheegaysa sidii loo qaybsan lahaa awoodaha iyo khayraadka, sidii loo dhisi lahaa cagii uu istaagi lahaa federation. marka sanadkii la soo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay inaan dhisnaa wada shaqayn iyo inaan keena aragti loo wada leeyahay habraac lagu gaari lahaa dastuurka ama processkii. waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiinaa doorasho qof iyo cod ah, taasoo macnaheedu tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u codeeyaan cidda ay rabaan inay madax noqoto, in cadda la xisaabtamayso mustaqbalka madaxda Soomaaliyeed ay tahay shacabka Soomaaliyeed. si kale haddii aan u dhigno in awoodda gacanta mar kale loo soo geliyo shacabka Soomaaliyeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay'adaha dawladda ay ugu kala taxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno sarreynta sharciga. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal. tusaale ahaan, dastuurka waa in la dhammaystiraa si isqabqabsiga loogu beddelaa xasilooni siyaasadeed. dastuurka waa in la dhammaystiraa si loo kobciyo dhaqaalaha dalka. dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan dib ugu yeelgaleelno qarannimada dalkeenna una diyaarino jiilasha naga dambeeya
inay naga guddoomaan Soomaaliyada ay xaq u lahaayeen. waxaan halkan markaa ka cadaynayaa xukuumaddeedu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 milyan oo loogu talagalay dastuurka. waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhammaystiro. laakiin waxaan rabaa ballanteenu inay ahaato dastuur Soomaaliyeed, maskax Soomaaliyeed, dhaqaale Soomaaliyeed, talo Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed oo dib u yagleesha Soomaalida naga luntay. waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Shirweynaha qaran ee dastuurka dib u eegista dastuurka Oktoobar 2017 markii ay hay'adaha dastuurka u xil saareen oo kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka, guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka ay isku maandhaafeen tubta loo marayo dib u eegista dastuurka. waxay madaxda sare waddanka juhdi geliyeen sidii isfahan loogu dhexgelin lahaa saddexda hay-adood oo dastuuriga ah. waxaan maanta ku faraxsanahay in odayayntaasi madaxda ay ka shaqeeyeen oo ay saddexda hay-adood iyagoo midaysan isla taabagelinaya qabashada shirweynaha muhiimka ah. waxaan idin caddaynaynaa haddii aan madaxda waddanka nahay iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay naga go'an tahay in la soo afjaro dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. shirweynaha wuxuu wadada u xaaray dhammaystirka dastuurka, wuxuuna caddeeyey in Soomaalida ay doonayaan dastuur ku yimaada rabitaankooda ka oo ay wasaaradda dadaal badan ugu jirto. dhanka kale, wasaaradda ayaa ku guuleysatay diyaarinta istiraatiijiyada waxbarashada madaniga oo ku timid talada wasaaradaha dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka. wasaaraddu waxay abuurtay madasha wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo looga doodo howlaha dib u eegista dastuurka. waxay wasaaradda ay samaysay istiraatiijiyadii waxbarashada madaniga iyo wacyigelinta bulshada oo isagana achievement weyn ahaa, taasoo ay ka dhalatay xitaa in tababaro oo aan ka dhex samayno dowlad goboleedyada dalka oo heer senior ah iyo muxuu ahaa dadka oo technicalka ee dowlad goboleedyada wasaaradaha. iyagana maanta ay xitaa fursad u yeesheen in ay sii tababaraan dadka localka ama ay sii gaarsiiyaan meelo ka baxsan caasimadda meesha waa dowlad ama caasimadda kumeelgaarka dowlad goboleedyada. runtii taasina waxaan u aragnaa inay laba qayb cayaartay. waxa waaye wasaaraddu oo capacity gareysay wasaaradaha dowlad goboleedyada si awood ugu yeeshaan shaqooyinkooda inay si habsami loo qabsadaan. iyadoo laga duulayo istiraatiijiyada waxbarashada madaniga iyo wacyigelinta bulshada ee arrimaha dastuurka, wasaaraddu waxa ay samaysay tababarka tababarayaasha oo ay ku qabatay dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolkan Banaadir, iyadoo ujeedadu ay tahay in la daadejiyo howlaha wacyigelinta si loo gaaro muwaadin kasta oo Soomaaliyeed. sidoo kale wasaaradda ayaa samaysay ololaha wacyigelinta baahsan ee saxaafadda. kulamadan guud ahaan waxay ku saabsanaayeen sidii ay wasaaraddu u bilaabi lahayd olole wacyigelineed oo baaxad leh oo aad u sareeya, kuwaas oo lagu beegsanayo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, haddii aan lahayd inay joogaan gobolladii iyo tuulooyinkii, iyadoo la adeegsanayo wadiiqooyin kala duwan ee lagu gaari karo dadweynaha Soomaaliyeed, haddii aan lahayd in saxaafadii loo maro, haddii aan lahayd in loo qabto kulamo gooni ah meelaha ay ku nool yihiin, tuulooyinka ay ku nool yihiin. runtii aqoon isweydaarsiiyadaas aan soo qabanay wasaaraddu wax badan bay ka faa'iiday, isla markaana dadka ka soo qayb galay aragtiyahooda isku dhaafsadeen sida ugu wanaagsan ee loo gaarsiin karo bulshada Soomaaliyeed dastuurkan, maadaama dastuurku uu yahay heshiis bulsho, isla markaana ay tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaato, maadaama uu yahay dastuurka heshiis bulshana lagama maarmaan ay tahay qof kasta Soomaaliyeed inuu ogaado xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dastuurka uu siinayo. wasaaradda arrimaha dastuurka oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa ay shir wada tashiya oo 3 maalin socday la yeelatay dadka aan matalaadda siyaasadeed lahayn iyo dadka naafada ah, kuwa oo talooyinkooda quseeya arrimaha dib u eegista dastuurka soo gudbiyay.
iyadoo aan loo eegin meeshuu ka yimid iyadoo aan loo eegin qabiil iyaan loo eegin haween iyo rag waxay ka yihiin inaan loo eegin naafanimadiisa iyo duruufaha uu ku nool yahay oo sida cayaasha kale waa muwaadin Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu wax doorto islamarkaana marka taasa waxaa u maleynaa inay tahay iyadoo qodobada cutubka labaad oo dhan ay muhiim yihiin haddana kaas ayaa waxaa u maleynaa midka mahagaayay in aysan ahayn naafanimadu huwiyad ama identity inaysan aqoonsi ahayn balse ay tahay xaalad nololeed oo qofku ku jiro naafada inaan la qorin waan ereyna waxaa la dagaalamaya in la qoraa dadka naafada ah qofka naafada ah qofnimada iyo dadnimada mar walba laga hormariyo xaaladda naafanimada labo waa in la daayo faqrada afaraad ee qodobka 11aad waa takoorid quman positive discrimination oo loogu baahan yahay in kor loogu soo qaado qaybaha nugul ee muwaadiniinta sida dadka naafada ah aniga ama gabadha ila midka ama maxaa la yiraahdaa maqalkala ama maxaa la yiraahdaa naafada jirka ah hadday aqoon leedahay wax barato xaq waxay u leedahay inay wasiirad noqoto waxay xaq u leedahay inay xildhibaanad qaran noqoto agaasimo guud inay noqoto inay maxaa la yiraahdaa isku soo sharxi karto madaxweynenimo because wadankan xaq ay ku leedahay iyadana xaq lagu leeyahay marka waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda xuquuqul insaanka oo isku xilqaantay in maxaa la yiraahdaa waxyaabahan oo kale la soo muujiyo laga hadlo loo istaago iyo wasiir Xoosh oo waligiisba naafada la ahay asxaab una taagnaa arrintooda in kor loo qaado wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa mar walba qorshayaasheeda iyo howlgallada ay samayso mudnaan gaar ah u yeesha dadka naafada ah wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa sidoo kale la tashi la yeelatay culimada Soomaaliyeed si bulshada ay u fahanto in dastuurka uusan ka hor imaanayn shariicada islaamka isla markaana uu waxba kama jiraan ku tilmaamayo waxyaabaha ka hor imaanaya diinta islaamka marka dastuurku wuxuu ilaalinayaa islaamka marka la waafajiyo mabaadi'da islaamka lagu dhaqmo nolol macaashkana lagu noolaado cadaalad iyo horumar iyo barwaaqo aakhirana jannadiisa la galo adduunyada marka laga tago la badbaado taas mabaadi'da guud waaye waxa kaleeto oo dastuurku oo aasaas u yahay oo ilaalinayaa sida wasiirku ma sheegay waxaa la iswaafajinayaa caqiidada ummadda ay ixtiraamayso qalbigooda dhex fadhiday kitaabka sunnada ahayd iyo dastuurkooda ay ku dhaqmaayeen wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa sidoo kale u turjuntay dastuurka luuqadda carabiga in luuqadda carabigu ay tahay luuqadda labaad muhiimada gaarka oo siinayso in luuqadda carabiga oo la carabiyeeyo oo dastuurka lagu tarjumo dastuurkanaga naftirkiisa farahayo in ay luqad Soomaaliya iyo luqad carabiga inay tahay rasmi oo labada luqad la isticmaalayo oo dadka Soomaaliya ay leeyihiin ay tahay taasoo faa'iido inoogu jirto in ummadda carabi wadamo carabeed oo ka badan dhowr iyo 20 wadan ah oo ka mid nahay ay ku hadlaan luqadda carabiga taasoo markaa sahlaysa inay fahmaan sahlaysa inay mabaadi'da naga dastuuriga iyo ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan oo akhriyaan si aan ugu xirnaano wadamada carabta iyo islaamka oo luqadda carabiga akhriyo taasna macno weyn noo sameynaysa waxaan rajaynaynaa insha Allah mashruucan dhamaystirkiisa waa tarjumaad oo awali ah oo hadda oo dastuurkii rasmiga ahaa uu imaanaya laakiin dastuurkan dastuur lagu soo dhaqmo haddana lagu dhaqmo waayo ku meel gaarka ah in uu jiro asagoo carabi ah kadibna kan kalena aan saa oo la bedelno aan rabnaa gabagabadii sanadkan 2019 wasaaradda arrimaha dastuurka waxaa u qorsheysan iyadoo la shaqeynaysa gudiyada ay shaqo wadaaga yihiin in la dhameystiro dastuurka iyadoo loo marayo hanaanka loo dhan yahay iyo wada tashiga waxaan rajaynaynaa haddii waxyaalaha technicalka shanta cutub hartay ay soo dhameeyaan labada gudi February dhexdeeda soo dhameeyaan waxyaalihii kaleeto oo ku saabsan in la hagaajiyo oo luqadda la toosiyo oo waxaas dhan ilaa umaleynaa March la ku dhameyn karo
adiga kulleyba taargetka noo yaala ama goolka aan leenahay yoolka aan leenahay aan kula ballanay madaxweynaha iyo prime ministerka waxaa waaye march dhammaadkeeda inuu dastuurka inta soo gabagabo la bilaabo habkii loogu geyn lahaa baarlamaanka. dastuurka ayaa qorshihiisu uu yahay in la soo gabagabeeyo bartamaha sanadkan si afti dadweyne loogu qaado.